جهادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا. فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. ahlu kitaabku waxa ay sheegeen in intii Yacquub iyo reerkiisu ay safarka ku jireen ay soo mareen magaalo Shakiim loo oran jiray oo uu ka taliyo nin la yiraahdo Jamir wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Shuqaym ayaa jeclaaday oo ka helay inantii uu Yacquub dhalay Diina. kadibna inta uu xog ku kaxaysay ayuu geysay gurigiisii. Shuqaym iyo Abi Jamur ayaa u soo ardaadig tagay oo u yimi Yacquub iyo wiilashiisii, waxana ay weydiistaan in ay siiyaan oo u guuriyaan inanta. inamadii uu Yacquub dhalay ayaa u sheegay in aanay kala guursan dad aan gudnayn, sidaa awgeed marka ay dhammaantood iswada gudaan ay siin doonaan inanta, labada qolana ay markaa kala guursan karaan. inkastoo aanay diintoodu u banayn, haddana Shuqaym iyo aabihii way ogolaadeen arrintii oo inta ay u tageen raggii beeshooda ayay ku amreen in la iswada gudo, dhammaantoodna way iswada gudeen. 3 cisho markii ay gudnaayeen ee xanuunkii ku sii siyaaday ayay urursadeen qaar ka mid ah inamadii uu Yacquub dhalay, oo inta ay ballantii ka baxeen ayay laayeen dhammaan raggii beesha. Shuqaym iyo aabihiina si xun u dileen, waxaana ay meesha ka heleen xoolo iyo hanti aad u fara badan. Yacquub markii uu Falastiin yimi ayay foolatay xaaskiisii Raaxiil oo waxa ay dhashay wiil loo bixiyay Benyamin, kadibna xumadii iyo xanuunkii foosha ayay u dhimatay. dhammaan ubadka Nabi Yacquub waxa lagu dhalay dhulka Haraan, marka laga reebo Benyamin oo kaliya oo isagu waxa uu ku dhashay Falastiin. Nabi Yacquub waxa uu u yimi aabihii Isxaaq, waxaana uu kula noolaa meel Xabruun la yiraahdo. kadibna waxa dhintay Isxaaq oo 180 sano jira, waxaana ay ku aaseen Yacquub iyo Caysuu isla meeshii lagu aasay Nabi Ibraahim alayhi salaam. intaas kadib waxa uu Yacquub ku nagaaday dhulka Falastiin ilaa uu u yeedhay Nabi Yuusuf oo ay u guureen Masar isagoo 130 jira, waxaana ay gaadhaysaa muddadii uu joogay Masar 17 sano. kadibna Yacquub uu geeriyooday, waxaana lagu aasay oo uu ku dardaarmay Jabruun oo hore ay ugu aasnaayeen aabihii Isxaaq iyo hooyadii Rifqa iyo waliba awowgii Ibraahim iyo ayeedii Saara. sida aynu ka wada dhereegsanahay qisada ugu wacan uguna qiimaha badan leh qisooyinka Quraanka ee ka sheekeynaysa Nabi Yuusuf iyo walaalihii, waxa ay dhacday muddadii uu Yacquub yaalay Falastiin. intiina badanina qisada waad maqashin, sidaa awgeed ayaynan u gudagelin. daawadayaal waxa dhacday abaar keentay gaajo iyo macluul daran, taas oo aad u saameysay dadkii ku noolaa Masar, Falastiin iyo qaybo ka mid ah Aasiya. waxa bariga Masar wasiirka maaliyadda ka ahaa Yuusuf oo si xikmadaysan u dabaray dalagii iyo maaliyaddii waddanka, taas oo keentay in ay dadkii kaga baxaan dhibtii jirtay. ummadihii kalena markii ay maqleen warka wasiirkaas howlkarka ah ee sida fiican wax u dabara qiimo jabanna maciishada dadka kaga iibiya ayay u soo guureen Masar, barkoodna u soo safreen si ay cunto iyo alaab uga soo iibsadaan. haddaba Yuusuf walaalihii waxa ay ka mid ahaayeen kuwii u soo safray Masar si ay cunto uga soo iibsadaan. markii ay yimaadeenna waxa gartay Yuusuf, waxaana dhex martay qisadii caanka ahayd. ugu dambeynna Yuusuf waxa uu ku amray inay dhammaantood u soo guuraan dhulka Masar. Yacquub iyo qoyskiisu xilligii ay Masar u soo gureen waxa ka talinayay boqoradii loo yaqaanay Hoksos. haddaba Hoksosku ay ahaayeen taariikhyahanadu sida ay soo wariyeen waxa ay Hoksosku ahaayeen qabaa'il Carbeed oo xoolo dhaqato ah, kuwaas oo ku noolaa baadiyaha Aasiya. waxa qabaa'ilkaas soo martay abaar baan, taas oo sababtay in ay dhulkoodii ka soo qaxaan oo ay u soo hijroodaan dhulka Masar. waqtigii ay Masar yimaadeen waxa jiray muran awoodeed oo u dhaxeeyay qoyskii waqtiga xukumayay, khilaafkaas oo daciifiyay taalkii dawladda. Hoksosku waxay ahaayeen niman dagaalyahan ah oo aad u yaqaan xeeladaha gulufka, sidoo kalena waxa ay haysteen seefo, warmo iyo hub markaa casri ah oo aanay Masaaridu lahayn. ilbaxnimooyinka Hoksosku dheeraayeen Masaarida waxa ka mid ahaa adeegsiga curbada oo ahayd gaari lagu xidho fardaha oo la saaro hub iyo seefo dhaadheer oo qoolaaban. tiradooda oo badneyd iyo xirfadda dagaalka oo ay aad u yaqaaneen. kadib waxa ay Hoksoskii istuseen in ay ka faa'iideystaan khilaafka u dhaxeeya qoyska boqortooyada oo ay iyagu waddanka inqilaabaan, waana ay u suurta gashay arrintii oo waddankii way inqilaabeen. Hoksoskii waxa ay shacabkii Masaarida kala kulmeen nacayb, jirdiid iyo waliba yasid, waxaana ay dadku u aqoonsanaayeen badow aan maamulka dawladda aqoon. sidaas awgeed ayay ugu bixiyeen naanayso badan oo ay ka mid yihiin Hoksos. magaca Hoksos waxa uu ka kooban yahay 2 kelmadood oo la isku daray, kuwaas oo kala ah Hayk oo ah boqorro iyo Sos oo ah xoolo dhaqato, waxaana ay la micno tahay boqorradii xoolo dhaqatada ahaa.
cimriga boqortooyadii hogseeska waxaa lagu sheegaa inuu gaadhay 200 oo sano. nebi yuusufna uu kusoo beegmay waqtigii xukunkooda uu bilowga ahaa, markii uu wasiirka yuusuf noqday ee uu dalkii iyo dadkiiba kala baxsaday abaartii baanay. waxaa kor u kacday sumcaddii hogsooska, waxaana sii siyaaday kalsoonidii ay dadku ku qabeen iyo weliba awooddii dowladda. sidaas awgeed ayuu boqorkii hogsoosku aada u jeclaaday, miiqaam sarena gaadhsiiyey nebi yuusuf. markii uu qoyska yacquub soo guurayna aada ayuu boqorkii ugu sii farxay, maxaa yeelay isaga iyo reer yacquubba waa ku qaxooti dhulka oo isxigtaysi iyo isweheshi awoodeed ayuu soo biday. boqorka oo wato ciidamo fara badan waxa uu usoo ambabaxay oo soo dhoweynta reer yacquub, waxaana ku weheliyey yuusuf iyo in badan oo ka mid ahayd bulshadii masaarida iyo weliba madaxdii iyo wasiiradii dowladda. ilaahay amarkiina imaanshihii nebi yacquub guul ayuu u noqday oo waxaa laga kor qaaday abaartii iyo macluushii haysatay waddanka. lama garanayo asal ahaan diinta ay haysteen hogsoosku, iyaguna cadaadis may saarin diimaha, mana ay faragelin. waxaase saameyn ku yeelatay diinta islaamka oo in badan oo iyaga ka mid ahi way islaameen. waxaana ugu horreeyey boqorkii waqtigaa ka talinayay oo lagu magacaabo arrayaan bin waliid bin thawraan. inkasta oo lagu muransan yahay waqtigii ay reer yacquub usoo hijroodeen masar, haddana culimada qaar ka mid ahi waxa ay sheegaan in ay ahayd 1900 oo sano miilaadiga ka hor. kuwo kalena waxa ay sheegaan in ay ahayd 1600 oo sano miilaadiga hortii. boqorkii masar ka talinayay ayaa yuusuf ku yidhi, aabbaha iyo reerkiina waxa aad dejisaa dhulka ugu fiican ee ugu qiimaha badan leh masar oo loo yaqaano jaasaan. waxaana uu siiyey hanti badan, guryo fiican iyo dhammaan agab iyo alaab iyo cunto intii ay u baahnaayeenba. culimada qaar ka mid ah ayaa sheegay in markii yuusuf ceelka lagu riday uu jiray 17 sano, markii uu aabihii la kulmayna ay u dhaxaysay muddo dhan 80 sano. intaas kadibna uu yuusuf sii noolaa 23 sano oo waxa uu dhintay isaga oo jira 120 sano. yacquub magaciisa kale waxa uu ahaa israa'iil. iminka wixii ka dambeeyana waxaynu u geli doonaa taariikhdii ubadkii uu dhalay israa'iil ama reer banu israa'iil. reer banu israa'iil markii ay masar soo galeen waxa ay ahaayeen 66 qof. marka yuusuf xaaskiisa iyo labadiisa wiilna lagu daro waxa ay dhammaantood isku noqonayeen 70 qof. kalsooni weyn ayay ka kasbadeen boqorradii, waxaana ay ka mid noqdeen reer banu israa'iil dadka ugu dhow boqorrada. awooddii dalkana saameyn ayay ku yeesheen. 17 sano kadib soo gelitaankoodii masar waxaa geeriyooday nebiyullaahi yacquub, waxaana uu ku dardaarmay in jabruun lagu aaso. kadibna yuusuf, madax ka tirsan dowladdii iyo bulsho kale ayaa soo qaaday jinaasada nebi yacquub, waxaana ay ku aaseen isla meeshii uu aabihii isxaaq iyo awoogii ibraahim ay ku aasnaayeen. yuusuf qudhiisu muddo yar kadib ayuu ku ducaystay inuu eebba oofsado, sidaas awgeed ayuu u geeriyooday. intii aanu dhimanna waxa uu ku dardaarmay in marka ay reer banu israa'iil masar ka baxayaan ay qabrigiisa ka saaraan oo ku aasaan meesha ay ku aasan yihiin aabihii iyo awooyaashiiba. muddo sanada ah kadib, hogsooskii waxa ay bilaabeen in ay bulshadii dhibaan oo dulmiyaan, xoolo baad ahna ka qaadaan. waxaana ay falalkani dhaliyeen in ay masaaridii nacaan hogsooskii oo ay ku bilaabaan kacdoonno iyo dagaallo joogto ah, ilaa aakhirkiina inta la riday xukunkoodii waddankiina laga eriyey. reer banu israa'iil maadaama oo ay ka tirsanaayeen dadkii ugu dhowdhowaa boqorrada, talada dalkana ay saameyn ku lahaayeen, taageero weynna ay u ahaayeen hogsooska, waxa ay bulshadii masaaridu iyaguna u qaadeen colaad iyo cugdad marba markii kasii dambaysay isa soo taraysay. dadkii waxa ay arkeen dabeecado xunxun oo ay reer banu israa'iil lahaayeen, kuwaas oo ay ka mid ahayd khiyaamada, laaluushka, jaajuusnimada ama basaasnimada, oo waxa ay hogsooska u basaasi jireen masaarida. sida oo kalena bulshada ayay siyaabo qaldan lacagta uga guran jireen. badnaanshaha iyo taranta reer banu israa'iil ee sii badanaysay waxa ay ku beertay bulshadii masaarida cabsi aada u fara weyn, waxaana ay ka baqeen in sidii hogsooska oo kale xukunka qabsan doonaan. mid ka mid ah boqorradoodiina arrintii colaadinta waxa uu u adeegsaday awood dowladeed, waxaana uu amray in lagu shaqaysto oo dhismooyinka lagu dhiso, sida oo kalena la adoonsado oo beeraha lagu fasho iyadoo oon wax mushqaayadaha la siinayn. ugu dambeyn shacabkii masaarida caado ayay u noqotay in ay bahdilaan reer banu israa'iil oo ay ula dhaqmaan si cud loola dhaqmo sida ugu foosho xun leh. waxba lama ay cuni jirin oo ceeb weyn ayay u yaqaaneen in ay masaaridu reer banu israa'iil wax la cunaan, sida oo kalena way bahdeli jireen, aada iyo aadna way usii yeesi jireen oo xataa kama ay guursan jireen. sidoo kale markii hogseeska la jebiyey ee waddanka laga saaray, reer banu israa'iil iyaga lama ergin, hantidoodii oo dhan inta laga qaatay
ayaa guryahoodiina la dumiyey waxaana laga mamnuucay in ay safraan oo ka baxaan magaalooyinka amaba ay guuraanba